بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا هبون داود إلى هانتيمبا meel kasto muuqaygu codkaygu idinka soo gaadhayo ku soo dhawaada wixii war naga soo gaadhay geeyga Soomaaliya doctor iyo guud ahaan dunida inteeda kale halka aad wararkaasi toos kala socotaan waa xarunta guud ee telefishinka caalamiga ee badda 24 TV ku leeyahay magaalada Hargeysa caasimadda waa Somaliland haddii baa raxmaankii raali ka ahaado waxa warka idin la socodsiin doona anigoo ah ناصر عبد القادر عبد الوهاب ناصر تلسمه qodobada aad warkayga ku ugu door karoleed ku daawan doontaan daawadayaal waxa kamida madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta si diiran lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland kadib safar ugu maqnaa dalka Djibouti warbixin ayaan ka diyaarinay sida ay u soo dhaweeyaan shacabka kala duwan ee ku dhaqan magaalada Hargeysa madaxweyne Biixi shirkii wada hadalada Somaliland iyo Soomaaliya ee ka socday dalka Djibouti ayaa lagu kala saxiixday heshiisyo hordhaca gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Dr. Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa ka tacsiyay geerida ku timid Allah u naxariistay qora Maxamed Baashi Xaaji Xasan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa waxa ka dhacay qarax la eegtay shacaba halkaas ay ku gooriyoodeen afar ruux tiro kalena ay ku dhaawacmeen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay sida uu arko shirka wada hadalada Somaliland iyo Soomaaliya kaasi oo maalmihii u dambeeyay ka socday magaalada Djibouti ee dalka Djibouti daawadayaashii qiimaha qadarinta xushmada karaamada naga mudan oo kuwaasi waxay ahayn qaar kamid ah qodobada warka imikii haatan isku diyaariya qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan